waxaanu go'aan ku qaadanay in maamulka Khaatumo si toos ah u laalay dhammaan wada hadalladii iyo go'aamadii iyo heshiisyadii dhexmaray maamulka Khaatumo ee kan Soomaaliland go'aamada ka soo baxay xukuumadda maamulka Khaatumo ay u soo jeedisay shacabkeedii nalaga sugayay inaanu shirka 3 casho soconayay go'aamadiisii wataa maanta la akhriyay maamulka Khaatumo go'aankiisii mid golo deegaan iyo mid xukuumadda sare iyo baarlamaanka go'aankayagii waasaa wiil aanu dhalan bay isaaqwan u bireeyeen ay hooyadii aan walcin si wala qalayaan oo ay warsamahaashin iyo weyd u bixiyeen oo ay walaalaatihiin ugula waasheen anigana walaac baa ay galay oo ma waafiqine hawiyaha wareeraha ka dhow heshay doori iyagaaban calankii waxna waraq u googoyn inta qaranka waxyeynayaan waardiyaanahay hal la wado dagaal waa hor waajib ku ahayban waxaan maqlay hees miyaam soo gabay ay leeyihiin warhooy inta shacabka tubilahayd adiga waxa lagu tumo marka waa gudnimo inuu shacab tubnayno wala tubi karaan qabaano waxaan rabnaa in la inoo tumo hadii aan leedmo sida go'aanka iyagu cadeeyay ay yahay inaanu ka baxnay wax kasta oo aanu la galnay qolada inaga xigta dhinaca waqooyiga Soomaaliya waxaad soo ogaataan hoosta ka xariiqdaan inagu waxaynu nahay dawladda Khaatumo State of Soomaaliya oo hoos joogta dawlad federaalka Soomaaliya marka dawlad goboleed baynu hayaan layna ogolaanin dadku 30 sano iyo 40 sano buu halganku waa waxaan laga daalin ku darsado wax allaala iyo wixii go'aan ah wax allaala iyo wixii wada hadalaha wax allaala iyo wixii ahaa isafgarad ee aanu la galnay reer Sheekh Saxaaq ama Soomaaliland warada la baxday qori saacada laga bilaabo hadaanu nahay Khaatumo waanu ka baxnay